ururka midowga Afrika ayaa shaaciyay xilliga rasmiga ah ee ciidanka AMISOM ka baxayaan Soomaaliya. Cali Xasan ayaa warkan inoo haya. ururka midowga Afrika ayaa shaaciyay in ciidanka AMISOM ay Soomaaliya ka bixi doonaan marka la gaaro sanadka 2021 isla markaana guud ahaan ammaanka dalka ay ku wareejin doonaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed. wakiilka midowga Afrika ee Soomaaliya Francisco Madera ayaa shaaciyay in ciidanka Soomaaliyeed ay diyaar u yihiin la wareegitaanka ammaanka marka la gaaro sanadka 2021 sida uu yahay qorshuhu. waxa uu shaki geliyay in uu dib u dhac imaan karo maadaama dhaqaale la'aan ay jirto isla markaana inta ka horeysa loo baahan yahay taageerada iyo qalabeynta ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed. madasha iskaashiga Soomaaliya waxay taageertay qaab dhismeedka 2019-2020 kaas oo aan ku heshiinay in 15 bilood ee soo socota ay muhiim noqon doonto in ciidamada amniga Soomaaliya inay si buuxda ula wareegaan mas'uuliyadda amniga marka la gaaro sanadka 2021 ayuu yiri madaxa ciidamada AMISOM. waxa uu intaasi raaciyay in caqabadaha jira loo baahan yahay in hadda si wadajir ah looga tashto si loo gaaro hadafka 2021. madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed ayaa sheegay in doorashada Soomaaliya ay u muuqato mid hal dhinac gacanta ugu jirta. Axmed Tifo ayaa faahfaahinaya. madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed ayaa mar kale waxa uu ku celiyay mowqifka uu ka taagan yahay habka dowladda federaalka ee Soomaaliya hadda ay ku socoto marka la fiiriyo hanaanka doorashada ee 2021 ee la doonayo dalka inuu ka dhaco. Shariif Sheekh Axmed ayaa mar kale waxa uu ku celiyay walaaca uu ka qabo doorashadaas inay ku dhici karto xilliga loogu talagalay, isagoo sheegay in madaxda dowladda federaalka ee Soomaaliya ay isku koobtay hanaanka doorashada iyadoo loo baahnaa in madaxda maamul goboleedyada laga qayb geliyo si la mid ah madaxda dowladda federaalka ee Soomaaliya aan ku aragtiyada ahayn ee ku sugan dalka iyo dalka dibadiisaba. waxa uu sheegay Sheekh Shariif Sheekh Axmed in xalka dalku hadda uu marayo ay u sii muuqato mid haadanka towra sida uu yiri, isagoo sidoo kale dhaliil u jeediyay habka sugidda ammaanka caasimadda Muqdisho. uu sheegay in lagu soo kordhiyay dhagaxaan waaweyn oo wadooyin hor la xiray tan iyo dowladan marka ay jirto labada sano iyo barka ah. madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa sheegay in madaxda dowladda federaalka ee Soomaaliya hadda looga fadhiyo in ay soo diyaariso hanaan doorasho oo lagu wada qanacsan yahay. si taas ay u dhacdana waxa uu sheegay in laga doonayo dowladda in tala wadaag ay ka dhigto doorashada soo aadan ee la filayo dalka inay ka dhacdo. waxaan ognahay waxa loo socdo waa doorashaduna waxay u baahan tahay jawi degan oo siyaasadeed. waxay u baahan tahay in la isla meel dhigo nidaamka doorashada soo socda. waxaan ognahay dawladdu inay kaligeed gacanta ku hayso nidaamka doorashada una dhigayso sida ay doonto. sidaas oo kale waxaan ognahay arrimaha amnigu inay faraha ka baxeen oo weerarada ka dhaca hadda meesha saldhigga oo dawladda magaalada Muqdisho inay ka badan yihiin kuwa hore, cabsidu inay sii kordhayso. sidaas oo kale dawladda waxaa loo abuuray inay u adeegto bulshada. waxyaabaha soo kordhay waxaa ka mid ah in jidadku xiran yihiin, laba isu gudbi karta aysan jirin, qof walba la weydiinayo dawladda ma u shaqaysaa. marka su-aashu waxay tahay oo dalkan xaq uma laha miyaa inuu ku socdo ku safro magaalada dhexdeeda ama banaankeeda qof aan dawladda u shaqayn. arrintaas marka waxay saameyn ku yeelatay kala xiraashada magaalada. waxay ku yeelatay saameyn dhaqaalaha. waxa laga hadlayo waa dhaqaale muxuu ku yimaadaa, muxuu ku kordhaa? waa in badeecaduhu ay isu gudbi karaan, waa in dadku isu gudbi karo, waa in dhiirigelin ay jirto dadku inay wax soo saar u jeestaan. taasna waxaa saldhig u ah amni iyo cadaalad, labadiina ma jiraan. hadalkan ayuu madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed uu ka sheegay shir jaraa'id uu ku qabtay Muqdisho, isaga oo barbar taagan madaxweynihii isaga ka dambeeyay ee Xasan Sheekh Maxamuud. waxaana maalmihii la soo dhaafay joogta noqotay Shariif Sheekh Axmed iyo Xasan Sheekh Maxamuud in dhaleecayn ay isdaba joog ay u jeediyaan madaxda dowladda federaalka ee Soomaaliya, iyagoo sheegay in aan la aqbali karin hanaanka hadda ay wax ku maamuleyso dowladda dhexe ee Soomaaliya, loona baahan yahay in wax ay ka bedesho.
dowladda Mareykanka ayaa malaayiin dollar waxa ay ugu deeqaysaa Soomaaliya. hay-adda horumarinta caalamiga ah ee Mareykanka ee USAID loo soo gaabiyo ayaa kaalmo dhan $250 milyan oo dollar ugu yaboohday Soomaaliya si wax looga qabto adeegyada aasaasiga ah sida cunnada iyo beeraha. waxa ay sheegtay ujeedada lacagtan ay u bixinayso in ay tahay sidii ay u caawin lahayd malaayiin qof oo ku dhibtoonaya waa dhibaatooyin badan ay ku haystaan Soomaaliya. lacagta dheeraadka ah waxa ay keenaysaa kaalmada bini'aadanimo in Mareykanka ay gaarto ilaa iyo 2.5 milyan oo dollar si wax looga qabto dad ku dhibaataysan Soomaaliya ayaa lagu yiri warka hay-adda horumarinta Mareykanka ee USAID la yiraahdo. Diana Batman oo ah ku-xigeenka kaaliyaha maamulaha Afrika ee wakaaladda horumarinta caalamiga ah ee USAID ayaa ku dhawaaqday in dowladda Mareykanka ay siinayso ku dhawaad 257 milyan oo gargaar bini'aadanimo dheeraad ah sanadkan Soomaaliya. Mareykanka waa deeq-bixiyaha ugu weyn gargaarka bini'aadanimo ee ka jira Soomaaliya, waxaana lacagtan ay qayb ka tahay lacago hore loogu deeqay Soomaaliya. madaxweynihii hore dagaal al-shabaab iyo kooxda macawisley u dhaxeeyay ayaa saaka waxa uu ka dhacay xadka gobolada Hiiraan iyo Bakool. Cabdiqaadir Maxamed ayaa warkan inoo hay. dagaalkan oo geystay khasaare kala duwan ayaa xubno ka tirsan ururka al-shabaab iyo kooxda macawisley waxa uu ku dhexmaray deegaano ka tirsan xadka ay wadaagaan labada gobol ee Hiiraan iyo waliba Bakool oo ay kala maamulaan maamulada Hirshabelle iyo Koonfur Galbeed. horjoogayaasha kooxda macawisley ayaa waxa ay sheegeen in dagaalkaas uu yimid kadib markii ay weerar ku qaadeen fariisin xubno ka tirsan ururka al-shabaab ay ku lahaayeen deegaan ku yaala xadka u dhaxaysa labada gobol isla markaana saldhigi halkaas ay ku lahaayeen. waxaana taliyaha kooxda macawisley ee ku sugan gobolka Hiiraan oo la hadlay idaacadda Risaale ee magaalada Muqdisho kaas oo lagu magacaabo Maxamed Cali Istakiin uu sheegay in dagaal khasaare dhimasho dhaawac geystay halkaas uu ku dhexmaray kooxda macawisley iyo xubno ka tirsan ururka al-shabaab. waxaana sidoo kale halkiis intaas ku daray intii uu dagaalku uu socday in hub fara badan iyo gaadiidka nooca dagaalka ah ay ka soo furteen ururka al-shabaab dagaalkii ay kula galeen deegaano ka tirsan gobolka Hiiraan sida uu hadalka u dhigay. meelayda El Cali ma u jirta adiga 16 kilomitir oo dhanka qoraxsimeed oo Bakool iyo ayay dagaal ka dhacay marka fariisin al-shabaab ay ku lahaayeen deegaankaas ayaan weerarnay ma garan. haddana ilaahay waa ugu guuleeyay ku dhahay 2 gaari Cabdibillana waan ka soo qabsanay oo ayaga lahaayeen ma fahamtay. haddana saacadan xilliga aan kula hadla saacadan anaga joogno dagaalkana saaka wuxuu bilowday ku dhahay 12 subaxnimo markii salaada subax la galay ma fahamtay. annaga xagayna nin waa naga dhintay nin waa naga dhaawacmay dhinacoodana dhaawac badan waa aragnaan ku dhahay dhaawac badan oo meel badan dhiig badan ku dadka laakiin wax dhimasho oo ama dhaawac kooda ku istaagin ma jirto laakiin waxaan haynaa 5 qori ayaga ay leeyihiin ma garad ay ka carbeen. haddana 2 gaari bilow 2 bishii ka saariyeen saaxiib ayaan soo qabsanay. tiraah ka dhowr jeer ayaa xubno ka tirsan ururka al-shabaab iyo kooxda macawisley waxa ay dagaalo kala duwan ku dhexmareen deegaano ka tirsan labada Shabeelle iyo Hiiraan. waxaana horjoogayaasha kooxda macawisley ay sheegeen in dagaalkaas ay ka dambeysay kadib markii dadka shacabka ee deegaano ka tirsan gobolada Hiiraan iyo labada Shabeelle ay markaasi cabasho ka muujiyeen dadkaas isla markaana yihiin shacab is aruursaday sidoo kalena ka hortagaya dhibaatooyin ay sheegeen inay ku hayaan dadka xoolo dhaqatada ah ee ku nool goboladaas xubno ka tirsan ururka al-shabaab. dowladda waddanka Australia ayaa safiir cusub waxa ay u soo magacowday Soomaaliya. wasiiru dowlaha arrimaha dibadda ee dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa la kulmay safiir cusub oo dowladda Australia u soo magacowday Soomaaliya. Cabdiqaadir Axmed Khayr ayaa Muqdisho kaga gudoomay nuqul ka mid ah warqadaha aqoonsiga danjirinimo. Alison Charteris safiirka cusub ee Jamhuuriyadda Federaalka waa safiirka cusub ee Australia u soo magacowday Soomaaliya. diblomaasiyiin Soomaaliya iyo Australiana ayaa goobjoog ka ahaa madasha gudoomida
intii lagu guda jiray kulanka ayaa waxaa labada dhinac ay ka wada hadleen xiriirka labageesoodka ah ee iskaashiga u dhexeeya labada dowladood ee saaxiibada ah. dowladda Australia ayaa dhowaan Soomaaliya usoo magacowday safiir cusub iyada oo kusoo biirtay dowladaha xiriirka wanaagsan la yeelan doona Soomaaliya isla markaana taageerada muuqatay midda aan muuqan siiya Soomaaliya. warkaas subax wuxuu idinkaga imaanayaa idaacadda Risaale ee magaalada Muqdisho. Kuuriyada waqooyi ayaa waxa ay xaqiijisay inuu guuleystay gantaal ay tijaabisay kaas oo la sheegay inuu ku dhacay badda waddanka Japan. Kuuriyada waqooyi ayaa sheegtay in gantaal nooca ridada dheer ah oo ay shalay tijaabisay uu ahaa mid guuleystay isla markaana aan waxyeelo geysanin. gantaalada ayaa Kuuriyada waqooyi ay tijaabisay waxa ay ku sheegtay inuu ahaa mid ay ku ogaanayso awoodda gantaalka iyo xadka uu gaari karo. waxaase dowladda Japan oo arrintan ka hadashay ay shalay sheegtay in gantaalka uu ku dhacay meel ku dhow magaalada dekada leh ee Wonsan, waxaana ay socdeen gantaaladaas ayay sheegtay Japan ilaa 450 kilomitir, taas oo waxyeelo gelin kartay dhaqdhaqaaqa dekada iyo sidoo kale magaaladaasi. militariga Kuuriyada waqooyi ayaa waxa ay sheegeen in gantaaladu ay sare u kaceen ilaa 910 kilomitir. tijaabada ayaa waxaa imaaneysaa iyada oo dhowr saacadood kadib markii xukuumadda Pyongyang ay sheegtay wadahadalada ku saabsan sidii lagu baabi'in lahaa nuclearka ee ay Mareykanka kula jirto in ay ugu dambeyntii dib u bilaaban doonaan jimcaha birita ah.